بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا إذن سلامة دمان ميل والبود أدونك كجوجتان مقعي ومريم سحابتي دي إيقو قالقا كسول هذا جنن كيغا maanta Maryam waxay idin haysaa saddexda shay oo idinka hor muuqda oo maxaan ku raahdaa liin dhanaan iyo sinjibiil iyo toon maxaan ku raahdaa ishak saddexda shay way saddex aad iyo aad u fiican oo daawo ah oo ma sha Allah tabarakallah tinta ayay aad iyo aad ugu fiican yihiin muhiim ay u yihiin tinta maxaan ku raahdaa ishak midda koobaad waxay u fiican yihiin timaha daata oo maxaan ku raahdaa gunta ka soo siibta way u fiican yihiin bidaarta way u fiican yihiin waxaan ku dhihi karaa ishak aflaaqada way u fiican tahay way u fiican yihiin waxaan ku dhihi karaa waxyaabo badan tinta horta ma sha Allah tabarakallah maba loo gaaraba maxay ahayd ishak soo baroobeey aniga waa soo baroobeey waa soo arkay maxaan ku raahdaa toonta ayaa wax yar shiiraysa maxay ahayd tinta laakiin maxay ahayd tira waxaan waa shiirayaan adigana waa ku timaysa meeshaas ma sha Allah marka insha Allah timaha daawo ayaaba loo helaba aan qabaa aniga maanta hadiiba saddexdan shay ilaahayna siiyay oon anagana garanay waxayba ila taaba in daawo loo helo maxaan ku raahdaa timiisiib maayo bidaarti timaha oo maaragta teelteelka ah oo gudaha looga jeedo inaysan maxaan ku raahdaa ishak aysan badnayn oo qafiif ay yihiin timahaas way soo dhali doonaan tin fiican oo tugul oo masha Allah ay ka dhigi doonaan insha Allah dadka bidaarta leh ayagana sidoo kale masha Allah ay ka dhigi doonaan ayadana way u soo dhali doonaan maxaan ku raahdaa ishak dadka maaragtaya madaxooda uu agoolka ku jiro agoolka maba loo gaaraba basti one oo u yahaba marka insha Allah walaalahayga waxaad sameynaysiin maxaan ku raahdaa soo baroobeey ila soo baroobeey aniga waa soo arkay idinkana soo baroobeey saddexdan shay waa saddex shay oo important madaxa maba loo gaaran dhihi lahay maxay ahayd ishak inaan sheego maba u maleeyba waxyaabo badan oo nafaqo ay leeyihiin tinta waxay ka dhigayaan shay qurux badan marka waxaad sameynaysiin marka ugu horeyso oo bilaabi doontiin waxaad sameynaysiin insha Allah inaad sameysiin madaxa haduu u banaan yahay oo kugtiisa loo jeejeedo madaxa guntiisa loo jeejeedo sawir ayaad ka qaadaysaa haduu bidaar leeyahay sawiraad ka qaadaysaa haduu yar yar yahay waad maxay ahayd ishak waa matirinaysaa inuu ku dheeraaday in kale tood bil ka bacdi ayaad hadana sawir labaad ka qaadaysaa bil ka bacdi ayaad hadana matiri doontaa insha Allah sida uu noqday maalintaas asla arkayna marka insha Allah maxay ahayd waxaad sameynaysiin haduu Ilaahay yiraahdo waxaan jeclahay inaad ii soo ducay doontiin hadaad baroobaysiin hadhiin waxaan waa uraayaan waa shiirayaan maxaan ku raahdaa ishak hadaad si fiican iskaga dhaqdo oo maaragtay adoo shaambo iyo shaambo aad u fiican aad ku dhaqato aad iyo aad waxba kaama soo uraayaan saasayba maxaan ku raahdaa ishagooba kaaga wada bidaayaan marka waa kanaha hadda maxay ahayd ishak waa maxay ahayd ishak hagaajiyo haya saan u hagaajiye saan ayaan u hagaajinayaa waa soo fiiqayaa saas ayaan u soo fiiqayaa si aad iyo aad nadiif ayaan ka soo dhigayaa waxaan sameey doonaa markaan maxay ahayd ishak aan saan u soo waxay waa jarjarayaa markaan jarjaro waxaan sameey doonaa blender ka ku shiidanaysaa hadana blender haysana waxay ahayd ishak geedka lagu xogo ayaad ku xogaysaa hadii aadan haysan geedkaasna ka sheemoyga ayaad ku tumanaysaa wax problem malaha maxay ahayd wax allaah waxaad haysato ayaad ku isticmaali doontaa haduu Ilaahay yiraahdo marka insha Allah waa kanaha saan ayaan u soo sameeyay fiican ayaan uga maxay ahayd uga riixriixanaya dheecaanka waa ka baxsanaya ma rabo inaan maxaan ku raahdaa ishak aan dabka iska saaro dabka hadaan saaro waxay leeyihiin manaaficad aad iyo aad u fiican ay leeyihiin boqolkiiba boqol ay noqonayaan ma rabo hadaan dabka saaro boqolkiiba 50 inuu uga noqdo boqolkiiba boqolkiisa inuu ku isticmaalaan rabaa haduu Ilaahay yiraaho waa kanaha waxba ma ii sheegayaan kuwan xagga iska dhigaya kan maxay ahayd xagga iska geeyaya marka kana ii soo hiray maxay ahayd ishak timaha labaad u dhigaysaa dhaxda hadda timo badan aad leedahay waxaad sameynaysaa horta wax kasta aad rabto oo maxay ahayd kugu filan weelkan ayaan ku soo shubanayaa kistaan ayaan maxay ahayd ishak hala kale inta iga geey kistaan ayaan maxay ahayd ishak timaha waa kala baraysiin marka timaha kala barto oo waxaan ku dhigi karaa jidjid aad u bixiso
waxaad soo qaadanaysaa maxaa la dhahay sheegeen waxaad soo qaadanaysaa suufkaas ayaad waxaad ku samaynaysaa aad dhexda ka gelinaysaa haddii aadan haysan maxaan ku rahdaa adiga waa maxay sidaad u isticmaal lahayd ma kuu sheegayo adaaba taqaanidba laakiin waxaad samaynaysaa suufkan ayaad soo qaadanaysaa biyo badan ayuu soo qaadayaa timaha waa kala baraysaa dhexda ayaad saas uga marmarinaysaa lafta ayaad saas uga marmarinaysaa ilaa gunta koro kulli ba maxay ahayd si fiican ayaad ugu soo maxay ahayd masaajeynaysaa haddii timahaaga ay maxaan ku rahdaa ishag ay yar yihiin oo aysan saas u badnaynin waxaad samaynaysaa korka ayaad uga aadsan ayaad ku siinaysaa aad sasad ay ugu masiireynaysaa si fiican ayaad ugu masiireynaysaa aad ugu masaajeeyaysaa maasha allah tabaaraka allah hadday dheer yihiin saan ayaad dhexda ugu bixbixi aad uga waxaynaysaa gunta kore ilaa madaxa meesha hooso aad iyo aad ayaad uga marinaysaa si wanaagsan oo maasha allah tabaaraka allah ayay kuu noqonayaan timaha xariir haddaad maxaan ku rahdaa isha weega hal mar haddaad marsato saddexdan shay weega hal mar haddaad marsato maasha allah tabaaraka allah maba laga sheekay kara timahaaga xariir qurux jajab malaha way kuu dheeraanayaan way kuu bixi doonaan insha allah si aad iyo aad u qurux badan ayay kuu noqon doonaan hadduu ilaahay raalli ka dhigo waadna arki doontaa insha allah waxaan rajeynaa inaad ii soo ducey doonto markay timihii kuu soo dhashaan jajabka kaaga baxaan agoolku kaa baxo haddaad agool laheeday waxaan ku dhihi karaa maasha allah tabaarakallah ay kuu noqdaan waad ii soo ducey doontaa hadduu ilaahay raalli ka dhigo marka maxay ahayd ii sheeg waxaan sameynayaa waxyaabo badan oo saliid iyo wax badan ay ku jiraan ayaan rabaa inaan soo sameeyo hadduu ilaahay yiraaho marka isheeg oo loogu talagalay in madaxa inta aadan dhaqin ka hor la mariyo ayaan soo samey doonaa marka madaxa waxaad samaynaysiin ha isheeg saliidda ha ka buuxinina saliidda haddaad ka buuxisiin madaxa wuu idinka dhimanayaa saliidda waxaa loogu talagalay intaada dhaqin ka hor inaad ka buuxisiin laakiin haddaad dhaqda ka bacdi maxay ahayd isheeg ha ka buuxinina saliidda shanleeya maalinta waxaad shanleynaysaa 2 mar habeenkeed shanleynaysaa subaxina waad shanleynaysaa saliid yaroo khafiif ayaad marinaysaa marka saas insha allah maxay ahayd ishag waxyaabo badan aan soo wadaa haddii aad rabtid waxyaabaha badan oon soo wado inaad wax ka ogaatid subscribe jarankayga maanta fiidiyogeena intaasuu ku egyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu